waa qaar ka mid ah waxgaradka nabatoonada haweenka iyo odayaasha beesha hintire baalcade waxaana ujeedada kulankooda uu yahay ka jawaabida hadal uu dhowaan jeediyey xildhibaan maxamed cumar dalxa oo baarlamaanka Soomaaliya ku matala mudane madaxweyne Cabdicasiis Laftigareen in aysan dhicin boobkii doorashadii hore ka dhacday koonfur galbeed ee lagu boobay masiirka kursiga beesha ee hoob nambarkiisu yahay 80 boobkaas oo ay mas'uuliyadiisa lahaayeen maamulkii xilligaas hogaaminayay koonfur galbeed iyo xildhibaanka hadda matala beesha hase ahaatee hadda waxaan ka codsanaynaa guddiga doorashada heer gobol iyo heer federaali in ay si gooni ah u eegaan kursiga beesha xilligii Cabdiqaasim Salaad Xasan ilaa hadda xilligan aan joogno xilligii Cabdiqaasim Salaad Xasan beesha waxay lahayd kuraas oo xildhibaano ay lahayd iyo wasiir waxa xilligaas xataa wasiirka ahaa dawladii Cabdiqaasim Salaad Xasan adeerkay ilaa uu naxariisto Cabdicasiis Mukhtaar Qariidi run ahaantii taasi iyo wixii aan soo sheegno dhan hadii dib loogu laabto waxay cadeynaysaa kursigan qof shakhsi ah inuusan keensanin sababtoo ah first political part in Somalia SYL ayaa waxa ku jiray qof Khaliif Hudo Macallin Cabdulleyra oo markaasba ka tirsanaa beesha hintire ka tirsanaa xilligii dawladihii la soo dhaafan dhan kursiyada way lahaayeen beesha kuraastan mid hadda iska timid ma ama qof shakhsi oo sameystay ma ahan hintire wuxuu leeyahay aqoon-yahan ani nafsideedaan ka soo qaaday saddex hadda laba dibid ay jirtaan halna intuu wadanku joogaa oo asiga ka yar 10 jeer uu dhali karo soo saaristiisa nooca asi uu yahay nooc ka horeeyay ku soo bixin anaga og waxaan mudulninkii ka dhisay ka weyn marka heerkaad isgaarsisay xadiitha waxaas leeyahay man takarara wadacahu Allah man tawalla rafa'ahu Allah ninka iska kor yeela oo dadka yasa ilaahay waa sorida darajadiisa kor ma gaarto ayaan rabaa waxa inta badan laga hadlay in kursigan duulaan lagu yahay uusan qof ka iska haysan karin marka saadaradeed waxaan rabnaa inaan dhambaal u tirno xildhibaanka inaan dhambaal u tirno oo aan u sheegno markii horeba asaga la bulshada u sheegay been oo ahaa kursiga cid mu haysto dhahay daraadna suu ku soo galay asigu og yahay maantana suu ku gali lahaa ay adag tahay hintire kursigaas marna kama haray hintire kursigaas wuxuu dhiiban karaa ama gabar ama wiil ugaaska beesha hintire baalcade ugaas Xuseen Maxamed ayaa beesha ku yiri inta meesha ka hadashay oo dhamaantaan aan maqalnay kan kale ka maqli doono waxay ayaga go'aansadeen ama waxay iga sheegeen aniga waa ayisanahay waan ku raacsanahay anigoo kuraastii arta nin aan u dhiibay ninkii asagana ka soo qaaday ninka igaarkeyga ah professorka aan gacanta ka saaray waqtigii Cabdullaahi Yuusuf wax markaas ay ugu dambeysay sharaf dhambo hadan waa ku ayisanahay waxaan leeyahay meesha jira jooga walaalahaygiyo marka wixiina haqa u leedihiin hadii aniga cabsi iga qabteegna aniga gacanta ka saaray markii gacanta ka saarayna dad oo yani janabin way joogeen dad Soomaali way joogeen Maxamed Muuse oo kamid ah aqoon-yahanka beesha ayaa aqriyay warmurtiyeed ka soo baxay beesha hintire baalcade oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ugu horeyn halkan waxaan raaligelin oo gudbinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee beelweynta hintire baalcade meel kasto ay joogaan dalka iyo dibadiisa raaligelintaas oo ku aadan meel ka dhici uu ku sameeyay mudanaha ka tirsan beesha ee ku matala xilka xildhibaanimo qaran ee uu ku matalo xilka xildhibaanimo qaran ee muddaxileedkiisu uu sii dhamaanayo waa professor Maxamed Cumar Dalxa kulankani wuxuu gabagabo u yahay kulamo dhowr ah oo u socday guud ahaan beesha qaybaheeda kala gedisan sida siyaasiyiinta aqoon-yahanka waxgaradka dhalinyarada odayaasha iyo haweenka beesha hintire baalcade kulanka ayaa looga hadlayay taariikhda iyo halgankii beesha ay ku lahayd laga soo bilaabo xornimo doonkii dhalinyaradii SYL oo ay beesha ku lahayd xubno firfircoon sida Allah u naxariistay Khaliif Hudo Macallin sidoo kale dawladihii ka dambeeyay ee dalka ka dhashayna
ay xubno ku lahaayeen ilaa laga soo gaaro burburkii dowladdii dhexe 1990kii kadib burburkii waxaa wadanka ka curtay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo dowlado ku meel gaar ah waxayna beesha ku lahayd xubno muhiim ah oo beesha ku matalayay sida xildhibaano wasiiro xubno ka tirsan guddiyadii qaranka dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo madaxweynaha ka ahaa waxaa beesha ku matalayay allah u naxariistay cabdicasiis qariidi oo soo noqday xildhibaan iyo wasiiro taasi oo ku tusinaysa in kursigan marna uusan noqon mid maran shirkani ayaa sidoo kale waxaa looga hadlayay kala xulidda siyaasiyiinta beesha ee raba in ay isku sharxaan kursiga sumad ahaan sumadiisa ay tahay hob 80 ugu dambeyn waxaa jiri doona kulan ballaaran oo lagu shaacin doono xildhibaanka beesha kursiga sumadiisa ay tahay u sharaxan insha Allah hortiina u imaan doono Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho.